subax wanaagsan markale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. dukaamo 20 ka badan ayaa lagu dhacay deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika kadib markii ay ku qamaameen boqolaal dhalinyaro oo ka soo jeeda dadka danyarta ah ee degan deegaanada ku dhow halkaasi. qaar ka mid ah dadka nala hadlay ayaa laga dhacay hanti gaadhaysa dhowr boqol oo kun oo dollar. haddaba Zaara Cabdi Axmed ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka ay dhibanayaasha dhibta ka soo gaadhay arrintan. warbixin arrintaas ku saabsanna way nooga diyaarisay. waqti ku dhow 48 saacadood ka hor dadkani waxa ay lahaayeen ganacsi ku fadhiya boqolaal kun oo dollar deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika. halkaasi se mar qura ayaa dadkaasi waxaa dareeshadaha iyo sidoo kale albaabada uga soo daatay burcad ku hubeysan seefo iyo burar. dadka deegaanka ayaa waxaa la sheegay inay u badan yihiin dadka dhacan geysanaya. mid ka mid ah dhalinyarada dhacaasi u soo bareeray ayaa rabshadihii socday ee dhex maraya dadka iska caabinaya burcadaasi iyo ayaga waxa ay keentay inuu ku dhex dhinto. ninka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii bililaqada ka geysanayay deegaanadaasi. waxaa la sheegay markii ay galeen dukaamada dadkaasi burcada in iskahorimaadyo ay kala kulmeen iyo iska caabin dadkii lahaa dukaamada, taasina ay keentay in mid ka mid a dhalinyarada burcada ah ee loo tiirinaya falalkan inay geysanayaan ay kasoo jeedo wadanka Koonfur Afrika halkaasi baangado nafta looga qaaday. Ibrahim Aadan Matkuus waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee Soweto lagu dhacay hantidooda. kulli aniga waxaa la iga qaatay laba dukaan waaye. waxaa la iga qaatay labada dukaan, mid uu yara weyn yahay oo maaragtay dukaan supermarket waaye. kulli hantada supermarket midku ku jirto waa adiga ilaa 350 kun oo dollar, ma fahamtay? 350 kun oo dollar lacag South Africaanka markaan qiimeeyo 350 kun ilaa 370 in u dhaxayso meelahaas uu ku qiimeysay. nafsaday baan kala soo baxay alxamdulillah, nafsada iga muhiim. saharoy kulli dadka meesha horta oo dukaanka la iga boobay Soweto liira waa locationka adduunka midka ugu weyn. kulli inuu Mareykan ku yaalana noo sheeg waa midka ugu labeeyay waa, ma fahamtay? waxaa jooga dad waxaa ku nool ilaa iyo adiga 4 milyan oo qof ku nool, ma fahamtay? marka waa dad maaragtay dhowr boqol markaan ku qiyaasaday waa dhowr boqol waay, ma fahamtay? baraha bulshada waxaa la soo dhigay muuqaalo ay ka muuqdeen dukaamo la boobayo iyo weerar lagu jabsanayo dukaamada albaabadooda. waxaa ka dhex muuqday meelaha qaarkood ciidamada booliiska oo ayaga soo gaaray goobta, waxaana dadkii la dhacay ee sheegeen in booliiska ay u ciidamin waayeen, sida uu mar kale leeyahay Ibrahim Aadan Matkuus. booliiska waan u yeeranay intuusan dhabka xitaana soo gaarin baan u yeeranay. marka kulley booliiska joogo baa dhicitaanka nagu bilaabeen. waa dad xitaa booliiska ka tiro badan waay. booliiska South Africaankana inta badan xabadii wax ma ridaan, marka way og yihiin dadka inaysan booliiska xabad ridayn ay og yihiin, way soo dardareen. ani hadda waqti xaadirkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddaan soo istaagay xitaa 30 daqiiqo ma joogo. waan ka soo qaxin. kulley shucuurtayda way kacsan tahay. qof oo maaragtay intaasoo sano wixii tabcay hal habeen laga qaatay, dareenkiisa kulley adiga waa qiyaasi kartaa. qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee deegaanadaasi ayaa u soo gurmaday dadka dhaca loogu geystay dukaamadooda deegaanka Soweto. Caamir Sheekh Xuseen waxa uu ka mid ahaa xubnihii jaaliyadda ee markiiba ku soo orday qeyla dhaanta dukaamadan la boobayo. okay, muuqaalka walaal waxaa waay in meesha uu dhib ka jiray maaragtay muwaadiniin badan oo laajiin oo dalka kasoo jeedana hantidooda lagu boobay. way jirtaa in muwaadin Soomaali oo la boobay oo maaragtay gacantiisa uu ku dhintay muwaadin South African ah. boobkana xad ma lahayn iyo dhibka maaragtay goobta aan maaragtay kusoo arkay. marka qofka dhintay ma Soomaali ayuu ahaa? may runtii wuxuu ku dhintay gacan Soomaali oo iska waabinaysay weerar lagu soo qaaday. runtii ma aha mid la koobi karo. Soweto waa meelaha ugu badan oo dadka ay ugu badan yihiin. waxaa ku yaala waa taqriban 1200 oo dukaan. haddii la eego waa malaayiin dollar ayaa halkaasi ku baabaaday. Maxamed Xaaji oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee deegaanka Soweto waxa uu iibinaya dukaan qof kale uu lahaa. waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyay dukaankaasi si lama filaan ah markii mar qura ay uga soo daateen dareeshadaha iyo albaabadaba dadka wax boobaya. waxaana uu ka mid noqday dadkii nasiibka u yeeshay in naftooda la soo badbaadiyo. dukaanka xilli galabtaadii 11 saac mar ay ahaydeen loo soo galay. dadka markii soo jebiyeen oo la soo galeen ilaa badan ku qiyaasay dhowr boqol qof. dalkan gadaalaha waxa niman oo deriska oo aan isku fiicnaan badbaadiyay sidaan ku soo baxno saldhig ugu sokeen la geeyay. marka saldhiga markii dambe wiilal Soomaali noogu yimid sidaan soo weyn ku keenay magaalada. hadda Johannesburg aan joogaa xaafadda Soomaalida. hanti aad u badan waa hadda sida qiyaasanaad ma qiyaas karo.
alaab hantida waxay ahayd alaabaan u taallay kaan hadda uu korka mahay laakiin aad u fara badan ahayd. dalka koonfur afrika waxaa ka dhaca had iyo goor burcadda hubeysan ee dhaca iyo dilalka u geysanaya dadka soomaalida iyo guud ahaanba dadka ajaanibka ah ee dalalka kale afrika ka yimaada. dhalinyaradan badi waxay ku hubeysan yihiin seefaf, baangado iyo sidoo kale burar. waxaa dadkaasi ay ku andacoonayaan dhaca ay geysanayaan iyo dilalkaba inay sabab uga dhigayaan xoolahoodii iyo hantidoodii ay xaqa u lahaayeen oo dadka soo galootiga ay qaateen. wakhtigan la joogo dhaca keliya ma ahan ee sidoo kale waxaa jiro dilalka dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ta dhalinyarada Afrikaanka ah ee wadamada kale badi ka yimaadana dalka Ethiopia iyo Eritrea oo halkaasi lagu waxyeeleeyo. falalka dilalka marka ay dhacaan ma jirto cid la wareysto, magdhow amaba xataa in cadaalada la hor keeno. waxaana badi qofka marka la dilayo ay sheegeen dadka deegaanadaas ku nool in si wadar ah lagu dilo, isla markaasina ay adag tahay in qof loo soo taago maxkamad fal dambiyeedkii lagu sameeyay maadaama dad tiro badan ay u gacan qaadeen oo ay nafta ka goonayaan. aad buu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa warbixintaasi ka hadlaysay boob xadaaf ah oo loo geystay ganacsiyo ku yaala deegaanka Soweto ay Soomaali lahayd. waa dalka Koonfur Afrika ka dhageysanaysaana waa VOA.